السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال واد سلامتي بنور والبادونكا دقيقي سنسان. halkani waa radio harwanaagaad kala socotaan shabakada caalamiga ciwaankeedu yahay harwanaagnews.com ama website-ka caanka harwanaag.com. dhegaystayaal alaaba waxaad inooga barateen barnaamijyo iyo warar isdaba joog ah iyo dabcan wareysiyada oo aan ku nahay. dhegaystayaal weligaa ma maqashay famil Soomaali ah ayaa korsaday ilmo yar oo cadaan ah. dabcan badanaa waxaanu maqalnaa famil cadaan ah ayaa soo korsaday ilmo Soomaali ah ama Afrikaan ah. balse maanta waxaan idin hayaa famil Soomaali ah oo asalkooda ka soo jeedo reer Djibouti iyo reer Somaliland oo korsaday ilmo yar oo cadaan ah oo Canadian ah. waxaan aqalkooda ku booqday famil aad u balaaran oo reer Djibouti ama reer Somaliland ah labadaba oo soo korsaday gabar yar oo cadaan ah oo Canadian ah oo ku hadasha afka Soomaaliga oo ayna bareen iyagu markii soo korsadeen. dhegaystayaal waxaan waraysi la yeeshay gabadha cadaanka iyo hooyada soo korsay iyo dabcan hablaha walaalaheed ah oo iyaguna Soomaali ah. waxaan kaloo aan waraystay aabaha gabadhaasi soo koriyay oo Somalilander ah. aqalkaasi oo aan booqday oo ku yaala magaalada Toronto ee dalkan Canada. balaan idin kala baxo waraysigii na kala dhex maray aniga iyo familkaas oo aan mid u waraystay. aan ku horeysiyo inanta cadaanka ee familku ay soo korsadeen. waxaana magaceeda la yiraahdaa Yasmin Roble. aan idin kala baxo dhageystayaal. Yasmin ku soo dhawow marka koobaad radio Harwanaag. waa mahadsantahay. okay Yasmin waxa tahay Canadian soo ma xagee ku dhalatay horta? Ottawa. gabadh waxaa tahay cadaan ah oo Canadian sidaa sheegtay waxa ku dhalatay Ottawa. familkaagu waa Soomaali weeyaan. maxay ku dhacday? schoolka ma bartay hablahan aniga aabaha kama fahmayo mas fahmeen markaana aabaha adiga aba haye markaana schoolka hooyo way garaacday waxay diin inanta aqalkaaga ma gashan karta markaana haye marka imisa hooyo ayaad leedahay imika? one. okay hooyada garaacday oo telefonka wacday iskuulka ma hooyada Soomaaliyeed ah ee ku soo korsatay mise waa hooyada kale? me abeed. okay marka imisa jir ayaad ahayd markii aad yareed aad familkan ku soo biirtay? 13. okay ka waran markii aad ku soo biirtay markii kuugu horeysay aad aragtay familka goormay ahayd? schoolkan bartay 99 okay marka jaar baa ahaydeen miya? me iskuulku ma isku barateen? okay marka maxaad ku jeclaysatay inaad familkan aad soo gashid? waxaan jeclaadayda way soo dawooday oo ku soo dhaweeyeen markaana waa dad fiican aad iyo waa dad wanaagsan yaa diintaada jecel dhaqan haysta. okay maxaad ku jeceshahay Soomaalida xagga cuntada xagga muusiga? imika waan ku arkaa dirac baad gashan tahay dharkii hidaha dhaqanka Soomaalida lagu yaqaan baad gashan tahay kalarka marka laga reebo Soomaali baad u egtahay. maxaad ku jeclaatay marka Soomaalida maxaa kamida? wax kasta. okay xagga dhaqanka ka waran? waa dhaqanka u fiican. okay maalintii kuugu horeysay aad gurigooda aad timid maxaa aad la yaabtay? ma jirtaa waxyaabo aad la yaabtay? me ka Soomaali waan korstay always since markii yar ahay Soomaali waan korstay schoolka iyo wax kasta. Soomaali baad saaxiib leeyahay? okay marka luqadda inaad baratid ilaa imise kugu qaadatay? 3 sanadood. 3 sanadood kaliya oo Soomaaligu masaas u fudud yahay? hablo imisa walaalo ayaad leedahay? 7 no 6 hablood iyo 3 inaan. okay imisa weeyaan hablaha imisa ayaa inama? 3 inaan iyo 6 hablood. magacadooda ma noo kala sheegi kartaa? hay Daqa, Degan, Ayaan, Shugri, Awa, Feiruz, Mahad, Awale iyo Salaman. okay ka waran hablaha badanaa marka meel isugu keeno way isdiriraan ma isdirirtiin? marmar. okay maxaa isku dirirtiin oo kamida? waa wax yar binan xijaabka ma iska xijaabka iska daysaa? ha hay wax yar
waxa yaroon weeyaan iska caadi weeyaan okay marka aad iskuulka aad tagtid ama dabcan imika waad shaqaysaa sida aan maqlay marka dibadda aad u baxdid ay kula socdaan familkaagu dadku cadaanku ka war markay ku soo eegayaan maxaa dareentaa waxba waa iska eegaan okay ma ku weydiiyaan laakiin ma ku yiraahdeen maxay yihiin dadkani anka wararkayga hay markaana maxay ku jawaabaan waxay loorinaa Soomaali waa tahay hay markaana waxaan mee waa kursiga waa familkayga ha okay ka war cuntada Soomaalida maxaa jeceshaa bariis iyo hilib ari bariis hilib ari jeceshaa maxaa kala jeceshaa pasta Soomaali waxaad soo dhan baad cuntaa ma karin taqaanaado marka cunto Soomaali ha haddii imkaan kuu sheego canjeerada see loo kariyaa ama laxooxda waan garanayaa kulleyba waxaa igu maqaalaa inaad tagtay dalkii geeska Afrika Djibouti iyo Soomaaliya bal nooga waran markii aad tagtay way fiican tahay hay Djibouti markii kuugu horeysay ya waan ka hada ka waran goormee sanadkaa tagtay waa 2004 okay hawadu halkaasi aad bay u kulushahay see ula qabsatay waa caadi waan qabsatay okay ka waran marka Djibouti maxaa ku soo jiitay dadka iska wada farxaan ha Djibouti imsa joogtay 3 bilood oo dhan okay Djibouti markaa ka tagtay xagee kale tagtay حفظي موعدي وانتي وحفظي وين حفظت ها بالعوسط بالعوسط اوكي كدب نجم جيبوتي ما كو اكاتي مسا waxa tagtay dalal kale Djibouti meel kale ma dantigin Soomaalida kulli Djibouti markaa tagtay waa magaalo aad u qurux badan Soomaali badan oo halka reer Djibouti way degan yihiin ka waran mid leedahay dadkan xagan maxay u joogaan Djibouti ugu noqon waayeen cuz waxay doonayaan better life education iyo shaqo haye Djibouti damaanto jira shaqo ma jirme wajira laakiin waa it's hard forget okay dad badan oo ajnabi meesha ma joogin oo ama Canadian ama kala kulantay xaga okay safaaradda Canada ma tagtay halkaas waxaan arkaa Francisada American Germany wax indheer waan arkay waxa dhan baad arkaysay okay adoo Soomaali ku hadlaya markaas markay ku arkaan mise dad badan oo waxa jira halkaas Soomaali ku hadlaya ayaguna way yaabeen dadka ha waxa oran jiray Diana idrna vadska Diana gaban iska daw korani hay marka wuxuu ku mudayeen qof Soomaaliyada oo sacadeysay hay way yaabeen dadka okay imika heesaa Soomaaliga ma dhageystaa ha yaa dhageysataa fanaaniintii hore mis cawaale aadin hay dadka ordama dhageysta fanaaniintii hore mis fanaaniintii imika both labada waxa dhan okay